jirnaa daawadayaal iyo dhageystayaal markan waxaanu aadna wadanka Koonfur Afrika magaalooyin kamida waxa ay dad wadanka u dhashay ay boob u geysteen dukaano ay lahaayeen dadka ajaanibta aan wadankaas u dhalan oo ay kamid yihiin dadka Soomaaliyeed iyadoo dukaamo badan ay jabsadeen kooxaha gangster ama burcada iyo dad kale oo iyaguna shacab oo ku qaamay dukaanadaasi dadka ajaanibtu ay leeyihiin oo dad Soomaaliyeed ay kamid yihiin hadaba wariyaheena nooga soo warrama wadanka Koonfur Afrika Abdullahi Qorshe ayaa waxaan kula xiriiray khadka waxaana weydiiyay bal inuu iga warramo dhacdooyinka iyo sida ay u dhaceen saameynta Soomaalidu ay si gaar ah u yeesheen waad mahadsantahay Mustafa warcadee toddobaadkii la soo dhaafay maalnimadii Isniinta toddobaadkii hore ayaa magaalada lagu magacaabo Soweto ee ah location-ka ugu weyn dalka Koonfur Afrika marka laga reebo deegaanka Khaliijka ku yaala magaalada Cape Town waxa ka dhacay rabshado lagu boobay goobaha ganacsiga dadka ajaanibta ku leeyihiin halkaas isla markaana waxa lagu boobay in ka badan ilaa iyo 100 dukaan sidii ay sheegeen qaar ka mid dadka halkaas ku nool iyo warbaahinta dalka Koonfur Afrika sidii ay tibisay dukaamadaas intooda badan waxa lahaa dadka ajaanibta ay ku nool deegaankaasi oo ganacsiyada kala duwan ku lahaa oo ka soo kala jeeda especially wadamada Pakistan, Bangladesh, Ethiopia iyo waliba Soomaaliya ku jiraan dukaamadaasi intooda badan waa la boobay qaarkoodna waa la soo barkiciyay halkaas halka qaarkoodna ay jiraan kuwa dab la qabadsiyo oo gabi ahaanba la gubay ayagii alaabtoodiiba xilli habeen ah oo dadkii maaragta lahaa ama dadka ajaanibta dukaamadaas lahaa markii laga dhax saaray kadib ciidamada booliiska oo halkaas gaaray ayaa sameeyay maaragta falal ka hortag ah oo lagu badbaadinayo dadka ajaanibta ah balse xilligaasi way suuragali weysay dadka rabshadaha sameynaya oo aad uga tira badnaa darteed waxaana suura gashay in maaragta gurmadyo kala duwan la gaarsiiyo oo ay ka dalbadaan deegaanada kala duwan ee gobolka Qooteen ee halkaasi ku yaala Abdullahi Qorshe marka maxaa sababtu maxay tahay maxaa keenay in la weeraro dukaanada dadka ajaanibta ah booliska ama dawladdu maxay uga jawaabtay iyadoo la tahay waad maasantahay rabshadahan lagu boobay goobaha ganacsiga dadka ajaanibta dabcan waxay yimaadeen markii maaragta ganacsade u dhashay dalkaasi Pakistan uu dil toogasho ah u geystay wiil 14 jir South African ah oo sida la sheegay kamid ahaa koox dhalinyaro ah oo xilli habeenkii Isniinta ahayd isku dayay inay goobtaasi ganacsiga u lahaa milkiilahaasi ay jabiyaan balse ninka ganacsadaha ah ayaa sameeyay isdifaacid isla markaana waxa la sheegay inuu la soo baacay hub oo xabado ku riday xabadahaasi ayaa waxa suura gashay inuu ku dhinto wiilka 14 jirka oo qalalaasa uu ka bilowday halka mid kale uu ka dhaawacmay oo lagu dabiibay isbitaalka dabcan dadka deegaanka oo arintaasi aad uga xumaaday oo sameynayay fal maaragta argudasho ayaa waxay sameeyeen inay boobaan oo guud ahaanba ay cagta mariyaan goobaha ganacsiga dadka ajaanibta halkaasi ku leeyihiin waxaana taasi ay suura gashay in maaragta in ka badan 100 dukaan ay 4 maalin gudahood cagta ku mariyaan isla markaana guud ahaanba dadka ajaanibta ay deegaanka ka soo saaraan dadka banaabaxa sameynaya qaarkood waxay wateen boorar ay ku qoran dadka ajaanibta anaga baxaano ma warrabno deegaanadeeda ganacsiga ay la wareegeen hantideena ay la wareegeen ay la mid ah qaarkood waxa la sheegay in maaragta ay bartilmaameedsanayeen oo kaliya ah dadka ajaanibta goobooda ganacsiga halka goobaha kale ee ganacsiga dadka South Africaanku ay leeyihiin ay caadi u shaqeynayeen oo aysan jirin wax saameyn ay ku yeesheen qalalahaasi ciidamada booliiska gaar ahaan taliyaha ugu sareeya qaybta maaragta ciidamada gobolkaasi Qooteen ayaa waxa uu sheegay in rabshadahan ay la mid yihiin kuwii ka dhacay sanadii 2008 dalka Koonfur Afrika ee la midka ah rabshadii jinsi naceebka ee lagu weeraray dadka ajaanibta ah dabcan qaar badan ayaa halkaasi waxa jira oo ganacsigoodii iyo hantidoodii ku beelay isla markaana ayagoo faranbaran ka soo baxay oo la geeyay saldhigyada booliiska qaarkoodna Soomaalida waxa la keenay xaafadda Mayfair oo Soomaalidu ku badan tahay halka oo gurmadyo kala duwan ay ugu sameeyeen ganacsatada Soomaalida ee deegaankaasi ku nool Wariyana Abdullahi Qorshe oo isagoo ku sugan wadanka Koonfur Afrika iyo warramaya kana warramaya dukaano dadka ajaanibta ee wadanka Koonfur Afrika ku nool laga boobay iyo dad Soomaaliyeed oo saameynay si gaar ah ugu yeesheen aad buu maadsan yahay Abdullahi Qorshe oo